badan oo araggeeda la la'aa kadib ayaa caawa lagu guuleystay in dib xorriyadeedii ay u hesho. Qofka aan ka hadlayna waa Saytuun, loo garan ogyahay Zizi Bibi, taasi oo aad iyo aad u isticmaasha aaladda TikTok, kana mid ka ah gabdhaha caanka ee ku nool waddankaasi Kenya, qaas ahaan magaalada Nairobi. Run ahaantii dad badan ayay murug soo wajahday oo baraha bulshada ka hadlayay oo ay qayb ka yihiin waalidiinteeda sida hooyadeeda oo soo dhigtay aaladda TikTok isla markaasna wareysi laga soo qaaday. Waxa ay tiri nin ayaa shirqoolay, dabin harisana u maleegay, sidaasi ayay xabsiga ku gashay. Dhowr cisho ayay halkaasi ku jirtay oo aan la ogeyn halka jaan iyo cirib ay dhigtay. Run ahaantii gabadhan Saytuun waxa ay caan ka tahay aaladdaasi iyadoona suuqa ku yaala magaaladaasi Nairobi, qaas ahaan xaafadda Soomaalida ee ku badan tahay Islii ku lahayd goob fariisin ah oo ganacsi u ahaa, halkaasoo ay ka ganacsanaysay. Markii la soo daayay kadib, shacab tiro badan oo ay ka mid yihiin ehelada ayaa farxad la ilmeeyay isla markaasna u dabaaldegay soo deynteeda, isla markaasna aad ula farxay. Farxaddan la qaybsaday qaybo ka mid ah qoyskeeda oo ku sugnaa isla goobta. Haddaba dadka baraha bulshada isticmaalaya aad u soo dhaweeyay soo deysmada gabadhan iyo in la helo ay sheegeen inay Allah mahadiis tahay maadaama ay aad u walwaleysay hooyada dhashay oo daa, waxaana loo sheegay lacag aan aqliga galinin 1 milyan oo kun in laga dhiibo gabadhan madax furasho ahaan ay u siiyaan dadka afduubtay kadibna la sii deyn doono, taasi oo ku noqotay caqabad iyo wajigabax aad u baahsan maamada. isla markaasna ay ka hadashay qaybo badan oo ka mid ah baraha bulshada ayadoo sheegtay arrintaasi inay tahay mid aan la qaadan karin, aadna ay ugu xun tahay. hase yeeshee caawa ayaa la soo daayay isla markaasna waxa u gurmaday dhammaan shacabka Soomaaliyeed cirif kastoo ay ku nool yihiin iyo dad badan oo caan ka ah qaybo badan oo ka mid ah baraha bulshada oo ay sheegeen inay cadaalad u baahan tahay Zizi ama Saytuun, si kastoo aad magaceeda u garanayso. haddaba waxa warbixintaasi kooban halkan idinkala socodsiinaya waa janalkeennii baaxadda weyn ee Dooxa Media. Warkaasi ayaan halkan idinku soo gudbin. waad mahadsantihiin dhageystayaasheena qiimaha badan.